aniga chairman ahaan mowqifkay waxa weeye horan waan uga soo jeeday horan waan u sheegay inaan magaalada saaye kulankaasi aanu maanta meesha qaban waqtigeediina aanu ahayn dawladda Soomaaliya ee maanta la kulmayana aan ahayn dawlad la kulmo aan mutaysan aan ay tahay baan aragnaa marka guud ahaan kama soo jeedaan Soomaaliya wada hadlaan asaatee dawladda hadda joogta oo og tahay yani dhibaatooyinka ay la raadiyeen Somaliland iyo heshiisyada ka baxeen iyo kii u dambeeyay ninka wasiirka arrimaha dibadda u qaabilsan wuxuu ku hadliyay in la hor fariistaa waxaan u aragnay tahay guul darro ku timi Somaliland. Faysal waxaan aad sheegayso dhan soo kuma sheegan kartaan wada hadalka la qorsheynayo wax alla waxay qabto Somaliland oo dhib ah oo haddana aad sheegayso haddayba jiraan soo miiskaas lagu wada hadlayo kuma sheegan kartaan. maya mas'ala waxa weeye dawladdu marka cid laba qaybood hadlaysa horta waxa ka horeysa in jawi wanaagsan oo isku ahaan hostile in la abuuro in heshiisyadii hore la fuliyo oo meeshii joogta iyo wanaag jirta weeye laakiin waxaan u aragnaa arrintan inay tahay arrin campaign ku geliyo madaxweyne Farmaajo arrinta oo annaga wax alla wax dan ugu jira aan jirin isaguna isleeyahay waxaad ku heli doontaa magaalada saaye taageero ayaad ku heli doontaa laakiin anigu mowqifkaygu waxa weeye Somaliland waxa maalin lagu dhameeyo wax suurtagal maaha laakiin xukuumaddii dalka hadda waxa ka talisa kulmiye oon ognahay masiirkana iyagaa matala inkastood mucaarad tihiin oo tala la idin gelin karo laakiin hadda shar iyo khayrba xisbiga kulmiya Somaliland wax laga weydiinayaa iyagina raalli bay ka yihiin oo Djibouti way tagayaan oo way la kulmayaan Farmaajo Soomahan arrintaas waxa weeye horta executive-ku wuxuu xaq u leeyahay waa jira hasaate markay noqoto mustaqbalka Somaliland waxa weeye waa arrin balaaran waxay u baahan tahay different baa la qaaday dagaal baa lagu qaaday waa la dhintay waa loo xasuuqoobay arrin maalin iyo laba maalmood la ilaa soo bax Djibouti ku kulmaysaane oo loo yeeriyo way ka arrin ka weyn tahay arrinta waxaan u arkaa inay aanay waqti casaar dhaafay madaxweyne Muuse taasi waa tii keentay dagaalkii sanad 94kii keentay ee ahliga ahaa tabtaasoo kale ahayd oo madaxweyne markaa joogay ayaa yidhi waxaan rabnaa in federation la samaysto 4,000 qof baa iska kaya dhintay waxaan u ahaa madaxweyne wuxuu ahaa raggii arrinta ku campaign gareynayay ee lahaa beeshaas waxay rabtaa midnimo Soomaaliyeed maantana waxaan u aragnaa in arrinta tiyo kala tahay yaan aragnaa oo khadkii dhaafay Faysal laakiin ilaa ay hadda ajenda cad oo la og yahay oo Djibouti looga wada hadlayo ma jiro waxa aad ka sii diday maxay tahay marka maadaama la yiri bar horta la isu imaado ajendiina aanan war laga haynin waxa laga wada hadlayo miyaa la isku soo noqon ma wax kala laga wada hadli maba oginba wixiiba marka soo ma mood inaad meel cidla ka diday engineer ma waxa weeye waxaan u qalmin ba in maanta maamulka ka jira muqdisho la fadhiistaa uma qalmo waa maamulku sheeganaya waa maamulku soo farageliyay waa maamul heshiisyada hore ka baxay waa maamulka sharci u dhameysay balbala horumarkeeda ka soo horjeeda wax xaaraan baa la hor fadhiyo Somaliland mudday sheegaysay inay ka go'day Soomaaliya kala go'ona wada hadal buu ku yimaadaa dalkii aad rabteen inaad ka go'daan inaad wada hadashaan oo wixii dareen ah ee aad qabtaan u sheegtaan waxa aad ka go'aysaan waa Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadda madaxweyne ka ah waxa aad wadaan oo dhan miiska intaad la tagtaan war sidan iyo sidan aan rabnaa hataa haddii go'itaan ay tahay Soomaaliya way ka go'day Somaliland way ka go'day Soomaaliya runtii Soomaaliya waxay yidhahdeen ma jirto iyagaba kala go'ay oo 5 wadan ah marka waxa weeye anagu dalkii waa haysanaa wax dhibaato aniga Soomaaliya noo dhaxeeya ma jirto wax loola hadlaa marka hore qalad bay ahayd isma dhiib Soomaaliya isma dhiib karto absolutely